السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واني ودا سلامي دمانتينا meel walba aad wada joogtaan maanta waxaa idin soo bandhigaa warar laga yaabo inaad weligaa maqlin qaybta 17aad daawasho wacan gabar la yiraahdo Jessica oo u dhalatay dalka Mareykanka waa kabtaynka ugu horeyso adduunka oo diyaarad duuliso iyadoo gacmo la'aan ah waa qofta ugu horeysa adduunka oo gacmo la'aan ah oo qaadatay shahaadada ama leesanka diyaaradaha taasna waxay ku gashay buugga Guinness 2013kana diyaarad ay waxay u duulisay dalka Ethiopia wiil oo u dhashay dalka Mareykanka oo la yiraahdo Brian Mice markay ahayd da'diisa 11 bilood aabihiisa wuxuu ku shubay ama wuxuu ku duray cirbad oo leh fayruska HIV-ga AIDS-ka sababtuna waxay ahayd isaga iyo xaaskiisa ayaa isku dhaceen maxkamad ay saartay oo iska furtay maalkiisana way la qaybsatay marka aabihii wuxuu islahaa wiilka ka dil ee ka aarso dhiigii markuu ku shubay wiilkii wuxuu qaaday jirada AIDS-ka takhaatiirtana waxay dhaheen wiilkan 5 sano ka badan ma noolaanayo laakiin ilaahay amarkiis wiilka markay ahayd da'diisa 19 sano ee fayruska AIDS-ka jirkiisa dhan uu ka baxay Brian Mice maanta da'diisa waa 24 jir uuna caafimaad qabaa laakiin daawooyinka badan oo isticmaali jiray dhibaato ay u keentay dhibaatadaasna waxay ahayd inuu maqalka waayo macnaha dhagool u noqday naag waayeel oo u dhalatay dalka Mareykanka da'deeda waa 102 jir rajadeeda waxay ahayd in ay xabsi gasho macnaha waxay rajaynaysay maalimaha ka mid ah in oo booliiska qabto oo xabsi geliyo laakiin mar dhow ayaa arinteeda booliiska maqlay way soo raadiyeen way qabteen xabsigii ayaa la geeyay laakiin lama xirin xaflad ay u dhigeen maadaama ay rajadeeda u rumeeyeen James Watson waa professor oo caan ah 1962kii wuxuu qaatay jaa'izada ama abaalmarinta Nobel 2014 lacag la'aan ayaa ku dhacday marka wuxuu damcay inuu gado abaalmarintii oo ku guuleystay 1962kii nin lacag la ayaa soo raadiyay abaalmarintii uu ka gatay wuxuuna ku gatay $4 milyan laakiin abaalmarinta kama qaadanin uu u celiyay wuxuuna ku dhahay adiga ayaa istaahilo $4 milyan ayuu siiyay abaalmarintiisana uu u celiyay Selena Alfaro waxay u dhalatay dalka Mareykanka maalimaha ka mid ah maqaayadaha Domino's ay waxay ka dalbatay cuntadii ay sugaysay laakiin waxaa loo keenay baaka oo lacag ah macnaha baakada cuntada loo keenay laakiin cunto kuma jirin waxaa ku jirtay lacag baakadii markay furtay waxay aragtay lacag oo gaarayso $5,000 ah marka telefoonkeeda ay qabsatay maqaayadii ay wacday waxay dhahday cuntan sugaay lacag ayaa ii keenteen arintaasna waxay ahayd qalad oo shaqaalaha galay ama shaqaalaha sameeyay Selena Alfaro lacagtii markii maqaayad u celisay maqaayadda waxay siisay abaalmarin 1 sano cunto oo lacag la'aan ah waxay siiyeen kaar meel walba ay tagto oo ay aragto maqaayadaha Domino's way galay kaarkaas ay tusinay cunto free ay leedahay wiil oo kurdi ah oo ku nool dalka Jarmalka maalimaha ka mid ah oo soon ay tahay ayuu sigaar wadada ku cabaayay dhalinyaro oo muslim ah oo sooman ayaa ka hor imaaday markay ogaadeen inuu yahay muslim oo soonneen way dileen intaas ayuu soo bandhigay waxaan rajaynaynaa ka faa'iideen share like subscribe haylaawin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته